في هذه بانو فرحسناي كلنكي بوقشده aan ku yimid Soomaaliland dagaalada Hargeysa sida la socotaana shalay aad joogteen waxa lagu dhaweeyay soo dhaweyn qaran badan lagu soo dhaweeyay oo loo kala hadin dawladda goliga wasiirada baarlamaanka guurtiga gobolka xisbiyada mucaaradka aqoonyahanka jaamacadaha ururada bulshada si aan kala hadlayn baan loo soo dhaweeyay ilaa haddana kulamo aad iyo aad u xiiso badan oo fiican baan galay runtii waxa sidoo kale maanta lagu soo dhaweeyay oo la kulanay baarlamaanka golaha wakiilada guddoonkiisii gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka koowaad gudoomiye ku-xigeenka labaad iyo xubnihiisa golahiisa fulinta sidoo kale waxaan la kulanay guurtiga Soomaaliland war xafiiskooda saaka ayagana aan isugu tagnay dhammaan si fiican bana loogu soo dhaweeyay runtii aadiyaad farxad leh ehelnimo leh walaalnimo Soomaalinimo leh waxaan kala hadlaynaa masaalixda guud ee naga wada dhaxaysa Soomaalinimadii walaalnimadii aqadkii waxaan ka hadalay runtii wax maslaxada Soomaaliyeed oo dhan taabanaya arrimaha ammaanka kamida nolosha isdhexgalka iyo wax wada qabsashada kamida si guud marka hawlahan aan ka wada hadalay aad iyo aad baan isugu afgaranay waxay u muuqdaan rag bisil oo runtii oo diyaar inay xalal badan ka galaan geeskan Afrika iyo madaradan iyo Soomaalida dhibaatadeedana ka wada xun kana tacsiinahay meelaha dhibaatooyinka ka jiraan wixii tabartoodana inay walaalada Soomaaliyeed wax la xaliyaan doonaya ilaahayna u baryay in xal la gaaro meelaha dhibaatooyinka ka jirana waan ku nidii dadka Soomaaliyeed ay dhibaato ka jirto gacan ka geeysta dib u heshiisiinta dadka Soomaaliyeed walaaladiina arrimaha maamulka iyo siyaasadaha iyo xuduudada iyo waxaas waa wax gaara laakiin ehelka iyo qaraabada iyo isku xidhnaanta iyo walaalnimadu waa waxaas oo dhan wax ka weyn runtii oo diin iyo qiyam ku salaysan iyo ehelnimo arrimaha si fiican baan isula garanay aad iyo aad baan runtii uga mahadcelinaynaa say nooga dhacdeen ilaa haddana kulamo noo sii dhiman way jiraan dawladda qaybaha kala aad iyo aad